أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer galmudugba ciiddan ciiddeeda inay ku ciidaan iyadoo intaan laga sii hormarsan yahay laga sii midaysan yahay hore loo socday intaas kadib waxaan isu daarmaynaa dhammaanteen ciidda maalintaa weyn ee ciidda farxadda iyo dabaaldega iyo reynreynta in lala wadaago inta aan gacantoodu wax ku jirin ama inta danyarta ah meel kastoo la joogo haddii darisnimo ay tahay haddii kuwa aad og tahay oo meel ku tabaalaysan yihin aad og tahay intaba in la gaaro oo la isgaarsiiyo farxadda iyo ciidda dadku wada ciidaan oo la wada farxo insha allahu tacaala sida ay ilmahaagu ciidayaan sida reerkaagu ciidayo sida adigu aad u ciidayso walaalka kale oo aan haysan intaas ayuu ugu baahan yahay sidaa darteed wixii la haysto ha la wadaago oo hala isgaarsiiyo ciidda farxad ha lagu wada ciiday insha allahu tacaala walaalayaal guud ahaan waxaan wada ognahay in soomaaliya waxyaalo yaryar oo mar walba xiliyadan kale la soo gaara ay iska jiraan galmudugna waa ka mid weliba de baryahan dambe wararka iyo qaylada iyo waa badnaayeen waxaan leenaha si guud soomaaliya waxaan soo daarmaynaa dhammaan arrimaha ka dhexeeya dhex yaalla muhiimka ay tahay in xal loo helo xalka keliya oo la heli karo oo lagu gaari karo inaan hore u soconno waa wada tashi waa isqancin waa wada xaajood ma jirto waddo kale oo wax lagu gaari karaa waxaas wax lagu soo daalay weeye horaan u soo aragnay horaan loo soo maray waxaan leenahay si walba oo dabaca iyo isku dayga iyo qofku aragtida si u gaarka ka horbaxaysa ay u jirto sida taas kuma soconayse aan isqancinno aan wada hadalno aan ka heshiino dhexdeena ka jira dowladnimadeenna iyo inta aan haysanno oo muddada lasoo kabkarayey oo lasoo loodinayey wixii lagu loodinaya waxay ahaayeen wada tashi isqancin meeshii ay dheeri ku jiro in laga saaro sidaasay ahayd marka waxaan leenahay iyadoo aan leenahay hadda balaayaasheeg iyo wax badanoo dhulka ay dadka qaarkii sheegaana run ma wada ah haddana indhaha lagama qarsan karo lagamana leexleexan karo haddii ay tahay aragti kooxda wadato iyo haddii ay tahay aragti shaksi wato midna waxba meel la gaarsiin mayso waxna loo xali mayso taas waa sida guud aan leeyahay soomaalida soo dadaarmaynaa waaan rajeynayaa insha allahu tacaala in ay noo soo degto oo aan xasuusanno meeshaan ka nimid iyo sidaan uga nimid iyo wadada dheeraan soo marnay iyo weli dowladnimadeena noo dhutinaysa iyo sida lagu hayn karo inaan xasuusanana waa jeclaa lahaa insha allahu tacaala oo cid kasta oo maantay iyadu markaas talada xaggeeda loo fiirinaya ay taas ogaato reer galmudug maalmahan dambe dabaylo iyo howlaha carada ka socday ayadana sidaasi lamida ayaan waxaan leenahay wax ama damac ama wax ayaga kugu jira meel tegi mayaan dadku waa soo wada jeedaan wax qarsoonna ma jiraan wax si farsamo hoose lagu wadi karaana ma jiraan
wax mid farsamo kor lagu keenay ma jiraan waxaas iyadoo la isla ogyahay oo lagu la yaqaano sida loo socdo oo lagu raacsan yahay iyo socon karaan dadkuna xilli ay talada wax ku leeyihiin oqaashoodii culimadoodii siyaasiyiintoodii waxgaradkoodii dhallinyaradoodii ayaa la soo gaaray maanta lama joogo maalin meel inta la tagay dadka wax loo soo gooyo lama joogo maalin ama wakti inta wax la isku dibirito waxaas la isku dibiritay inay socdaan ama qorshe lasu soo sheegay inuu socdo oo gaar u socdo lama joogo waxaa la joogaa waa dharaar la isu jeedo maxay ahayd ninka dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo waa dharaar lagu dhowraye midkaaga dhinac ka raac wax qarsooni ma jiraan ninkii wax qari islahow ninkii wax si hoose u wad islahow ma jirtee baashu halkaasay taallaaye xilligan waddanka guud ahaan uu ku jiro doorashooyinka waxaan u baahannahay doorashooyinka iyo waktiga madaxweynadeed ay dhammaadeen iyo hawsha lagu jiro talo wada jira loo tashaday lagu midaysan yahay wax loo siman yahay oo dhexda yaallan oga baxno si kastaad yeesho wax gaara isku daygoodu hadday wax noo dharayaan hore aan isugu soo dayno ciribtoodana waa soo aragno taasi waxba keeni mayso xanana noo siyaadin mayso dadka reer galmudug waxaan si gaar ugu daarmayaa walaalayaal meeshaan maanta la soo gaaray iyo meesha la joogo waxay u baahan tahay inaan midnimadeenna iyo wadajirkeena ilaashano inaan bulshadeena la kala qaybin inaan loo keenin wax dadka lagu kala dhantaalayo in qof waliba meesha uu joogo xilka iska saaro cid si gooniya wax kuugu hagaajinaysa oo si gaara kuugu maqani ma jirto danta caamka waa la wada ilaashadaa danta caamka maslaxadaada waa la wada dhowrtaa qofna marti looguma ah dadka is yidhaahda adigu waxaan kuma de hadda hawlka ma dhikatid baun ama hadda meel iska raac is yidhaahdaa waa waxyaabaha keena inay bulshooyinku dib u dhacaan waa waxa keena inan dadku ayan ilaasho dantooda cid kastoo dadka kala qaybintiisa ku hawlana waxaan leenahay si kale wax u raadsada dadka kala qaybinada beenta iyo brobagandada iyo waxa dadka lagu dhex tuurayana waxba laguma gaarayo wax aad leeyaha marisay waxaad istiraado wax ku sasameeyo wax ku dherdheero dadka ku qala dadkuna qaldan mayaan meelyahan iyo waxaan aad laga shaqeynayana waa la fahamsan yahay inay wuxuu been yihiin waxaan run ahayna meel adiga shaksiyana qofkaadan ahayna kaama dhigi karaan qofkaa tahay ayaa tahay kooxda aad tahay ayaa tahay sidaa tahay ayaa tahay wax walbaad sheegto marka waxaweyaan dadka jahwareerka iyo been abuurka iyo meeqaa la akrinaya hadeer labada suaal soo dhaafay maxaa la sheegay aw waxa la sheegay aw beentii la akrinay waxaan leenahay dadka ilaahay uga cabsada ilahay uga baqa ka xishooda ka daaya dadka waxaad ku dhex tuuraysaan oo macno darada ah meeshaas hawlahaas iyagaa jirana midii qaranka iyo tan isteedyadaba waxaan u baahannahay inaan uga gudubno wada tashi iyo wada jir ayaan u baahannaha ilahay idinkii sidaasaanan uga gudbi karnaa sidaasaanan ku socon karnaa si gaarahoo kale kuma socon karto waxaan soo rajaynaynaa dhammaan meeshii meel la joogaba aan soo ducayno maalmahan ciiddan oo maalintan weyn oo kale ilahay aan ka barin insha allahu tacaala inaan tawfiiq iyo talo ilahay na haleeshiiyo horena loo socdo meesha la joogana meel fiican baa la soo gaaray inaan meesha hore uga sii socdo insha allah waxaan isu leenahay khayr iyo barako midnimo iyo wadajir baa noo badan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu